يا غافل warmooganow hooyada waa hooska aad ku raaxaysanayso oo aad ku nasanayso waa midka awooddaadu ku xoogsamayso hurdadeebaad ku raaxaysanaysaa adigoo ka xanaajiyay oo xumeeyey oo weliba ka hijrooday oo ka tegey hooyadaadu waa iftiinka noloshaada wallaahi haddii aad iftiinka weydo uu kaa tago waxaad ku dhex jiraysaa mugdi haddaba haleel oo ka daba tag iftiinka inta uusan kaa tegin oo aadan weynin haddaba weydii dadka waalidkooda waayeen dhibaatada ay ka mareen dashay hooyada dhimatay ولدان هالوضايو دقن حمية وحي لعلسطا دبيانانو دفورنا قطو دريا ليقا كالتالو إكستو دقانا وهورتو نفكستو كنتid دفقايا وسقو كماقو ايو كل نغاياه هكا سوغينينا يديرتي وضا دراشايو دوكشادي هويا كما قندبان صراحية qoyskay ka dhimataa dhibtaa laga dareemaye maxaa dhinaanigaysiin dhaliil qabata loo waayaa wallaahi ilmaha qaar ma fahansana ihsaanka iyo wanaagga ay nagu leeyihiin labada waalidkuna waa ismoogaysiinaya ilmahoodu waxay ku sameynayaan wayna istilmaamsiinayaan cadfigooda iyo dhimrintooda waxaa ka mid ah way noo sabrayaan hooyooyin iyo aabow naga raalli ahaada calooshu intay ku hoysay hiyigu ku baxnaaninayay horaadka intaad jaqaysay dhabtaydu intay ku haysay intaad huwanay taftayda hobayda intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuun iyo gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahaaga hunga ay xusuusinaysa alla maxay hoogtay saacadaas waa saacadaas aadan ku fakaraynin oo aadan samaynaynin una samaynaynin wax ihsaan ah oo aadan u shaqaynin iyaga oo aadan u qabanaynin waxa ay u baahan yihiin afarkiila adoo ay caloosh kugu waday 9 bilood bay ku wadaa hooyo gabdhaha da'deeda fiidi waa dhudhuuban yihiin iyagoo dhan way fudud yihiin hooyo markay la socoto gabdhaha way ka tagayaan ma gaari karto war maxaa dib u dhigay hooyada adaa u dhigay uurkeedaad ku jirtaa aw xaqeedii hooyo gabdhaha leeg waxbay arkaayaan waxbay maqlaayaan way ordaayaan way qurux badiyiin waa kaa miskiintaan dhartay ee isku dhartay soo godatay aaway xaqeedii aaway adaa u haya haddaad u diiday xaqeedii allah siiyey subxaanah ilaahay baa siiyey boqolkiiba 75 buu siiye hooyo xaqeeda 75 buu hooyo siiyey maxaa ka hoog badan saacadaasi aad hooyada iyo waalidkaaba aad codka kor ugu qaadayso oo aad ka xanaajinayso ay ka xanaaqsan yihiin maxaa ka hoog badan saacadaas oo ka xun maxaa ka hoog badan saacada ay waalidka jeefanayaan iyagoo raalli ka ahayn ma waxaad u caragelinaysaa wax aan macno lahayn ma waxaad u xumaynaysaa taleefon uusan kuu soo gadin sababtii waxaan macno lahayn miyaad uga xanaajinaysaa u xumaynaysaa ma waxaad uga xanaajinaysaa sababta gaari inuusan kuu keenin uusan kuu soo xaadirin ma waqti yar oo asxaabtaada aad la qaadanayso ayaad uga xanaajinaysaa dhowr shilimaadoo lacaga inuu ku siiyo miyaad adduunyada yuu u kulminayaa adiga maahan miya wuxuu u dadaalayo ee uu daalayo adiga maahan miya qofka uu dhibaatada u wajahayo soo adiga maaha meeqa ayuu daalay meeqa ayuu dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u dhididay meeqa ayuu u dhibtooday adiga dartaa meeqa ayuu u raadiyey oo ugu hoogay shaqo adiga dartaa xasuuso wiilkaygiyow xasuuso waalidkaagu inuu ku jecel yahay jacayl saa'ida hooyo intaad ka maqan tahay way walwalaysaa hooyo way murgaysaa hooyo way murgaysaa way ooyaysaa hooyo wax miyaa u keenay la'adahay war aawi hooyooyinkiin aaway xaggeed ku ogtihiin cirka maa ka soo dhacdeen mashquulkaa ka soo baxdeen xaggeed ku ogtihiin hooyooyinkiin hooyadeen ilaahayow kahay dhibab halaakeeya hodannimo ilaahayow ku sii dunida hooskeeda caafimaad rabbow kuu wataa hadiyo gooraale haddii uu wakhtigu soo galo malagu hoomaayo hawl yaraan ilaahow naftiyo hadada loo qaato hogga iyo ilaahow qabrigay hanato tawxiidka halka lagu hakanayo barsakha hadhac qabow seexi ilaahow jannada halacsataa iyo hibaaqeeda oo heelkii qiyaamaha rabbiyow hagar la'aan dhaafi hawiyo ilaahayow ka hay naartu wahaliise halkii nebigu joogiyo rabbiyow lagu hagaa khayrka